markaa Putin wuxuu qaaday tallaabo dadka qaar ay ku macneeyeen intixaar isdil amba waxay ku macneeyeen degdeg amba waxay ku macneeyeen غير رؤية بالعقد لكن أنا waxaan arkay inay tahay tallaabo istiraatiiji marka saas oo noqon kara tallaabada uu qaaday حتى هو حلالي استعمالك النوكلييرك sababtoo dhulkiisu ku difaacaya wixii oo dhan aad awood aan haysto waan isticmaali doonaa gartay sheekhana saa ogtahay reer galbeedku ayaguna ma gaabsanayaan waxay wadaan ninkaasay u haleyn lahaayeen dhiiqo ama dhaqo lagu gelin lahaayeen reer galbeedka hadday sii wadaan dadaalkooda ku aadan inay ku adkeynayaan ninkaas Putin iyo wadanka Ruushka dagaalka kula jira Ukraine ma laga yaabaa markaa in Ruushku uu isticmaalo markaas تهديدك وصوبنا يا معاقد جكولينتي كودي النوكلير كانوا يستعملوا طبعا اوكي horta waxaa jirta waxaan ku bilownaa maxaad kelmadeena wareysiga marka laga hadlayo dawladdu waa awood siyaasaddu waa awooddu waxay leedahay labo awoodda dabacsan iyo awoodda adag solid taraada adag waa hubka iyo wixii la maalmaala awoodda dabacsanna waxa weeyaan waa barbaahinta iyo maalka iyo wixii la halmaalaa ninka la yiraahdo Putin wuxuu isticmaalay laba awoodood wuxuu isticmaalay waxa la fardul waaqi buu abuuray wuxuuna dadka ugu yeedhay waaqica inay ictiraafaan amba hadday diidaan maca zaman inay ictiraafi doonaan waaqi saaq la dhaqma ruushka kula dhaqma haddii lagu dhaqmo waayana xoogii uu isticmaalay tahdiid wuxuu ku hadiday awoodda uu siiyay ilaahay inuu isticmaali doono aba isagu samaystay ma awooddaasi waa nuclearka marka hubka noocyadiisa oo dhan xalaal bay tahay inaan isticmaalo haddii xuduudda ruushka loo soo dhawaado xuduudda ruushka waayo waa Ukraine gudaheega afarto qabsada marka istiraatiijiyan waxa weeyaan wuxuu sameeyay waa tahdiid bilqumbula nawiya haddii lagu nuclearka haddii dadka lagu hadido waa kaanaka isticmaaltaha أو استعمال شباب في البارتي في القانون الدولي قانون كدولي واستعمال شيء هبك dadku handado adoo isticmaalay lamid iyo lamid tahay okay marka muxuu yiri haday saa dhacdo saaba dhacaysa bimaana waxa weeyaan talaabo inii taala ma jirto oo dhulka ku soo celin kartaan marka maxaa dhacaya su'aal baa la isweydiiyay ma la isticmaali karaa nuclearka waxa la yiri waa suurtagal la isticmaalo see loo isticmaali karo waxaan ku soo dhaafay gobolkii uu ku yaalay warshada ugu weyn ee nuclearka uu qabsaday ee Ukraine wuxuu kaloo qabsaday meesha soo saarta waa taas ka mid tahay korontada dalka laga isticmaalo Ukraine boqolkiiba 30 Ukraine meesha ka qaadanaysa korontada saa gacanta ugu haya meesha haduu doono damin karaa waxaad ogtahay dhibaatada ugu weyn ee soo gaadhay dhaqaalihii reer Yurub oo la filayo jiilal